بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waa Ijara sub county oo dawladda Garissa county ay maaragtay cunto u soo dirtay dadka tabaaleysan ilaa waxa dhaceen musiibooyin sida coronavirus oo ay ka dhasheen raashin la'aan iyo kala xirxiran iyo sicir barar roobabna way de'een dadkii waxaas hateen meel ay wax marsadaan ay waayeen waxaan noo soo dhiibay raashin oo noo soo dhiibday dawladda county-ga oo hogaaminaha Gabacane Buno Qorane ku-xigeenkiisuna Cabdi Dhaqane waxay noo soo dhiibeen raashin afur ah oo inoo soo dhiibeen Ijara sub county oo loogu talagalay dadka ducafada ee tabarta daran dadkii waan gaarsiinay Ijara iyo qoladii huluuqoona xagga ay aadeen anagana intaan joognaa raashinka waxaan ka soo bilaabnay qaybis Cabdi Guure Gababa Hara Kurisa Bulawerede Otile Abalatiro Qarmada Rahma Warsame Ruqa Gerile Ijara Waradegoga Sanguli Bulawaja Dalolo Bulagolol Buday Jallis Bultahama Falama iyo Sagara waa 23 sub location raashinkoodii yaanu qaybinay inta ayaan geynay waan ku ekaysinay sub location-yaha 23 goobood oo ay ka kooban tahay Ijara yaan geynay sub location oo Ijara oo ay ka tirsan tahay alxamdulillah si fiican oo dhamaaday dadkina way ku mahadceliyeen raashinka dadka soo dhiibay aadayna ugu mahadceliyeen waxayna amaaneen dawladda waxay dhaheen fariina gaarsi waad ku mahadsantihiin anagana amaanay la soo dhiibay ilaahay nagu xufurta saayaan ku soo dhameyn aan ku soo gudinay dawladda Garissa county oo madax u yahay Gafana Cali iyo dibadkiis Cabdi Dhaqane aad bay u mahadsan yihiin mucaawanadaas ay ummadda iyo dadkoodii ay u qaybiyeen aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin cuntadan wuxuu ku soo hagaagay waqti munaasabe oo waqtiyihii ilaahay uu sheegay markii ay dadka ku dhacaan in laga faa'iideysto maxaa yeelay dadka markii aad u dhibaataysan yihiin waa in gargaar lala gaaro quraanka ilaahay wuxuu yiri falaqta hamal aqaba wama adraaka mal aqaba qofka buurta mu isku dhax tuuro ka gudbo ilaahay wuxuu yiri wama adraaka mal aqaba maxay tahay buurta la rabo in la foolo dhanka kale looga dego janno in la galo fakku raqaba qor waa in la xoreeyo qof adoone muslime ama qafaale oo la xoreeyo way oo idcaamun fi yawmin dhi masqaba dadka cunto la siiyo maalin ay jirto majaaca iyo gaaja sida tan oo kale yatiiman dha maqraba agoon qaraab oo wax la siiyo weeyay oo miskiinan dha matraba ama miskiin dhulka yaalo oo carradii asaga aan loo dhaxayn wax la siiyo way marka waqtigeeda ay ku soo toostay aad baan ugu mahadinaynaa waxaan joognaa bil Ramadaan 10ka dambe marka farxintaas muslimiinta ay ka farxiyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay ilaahay amalka uu jecel yahay waxa weeyay qof muslim oo qalbigiisa farxad la geliyo ama kurba laga feedo ama deen laga bixiyo ama gaajo laga qoodiyo intaba maanta munaasab ay u tahay munaasabadan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan maaragtay ilaahay ka baryaynaa inuu maaragtay miisaanka xasanaadkood inuu ku kabo inuu ilaahay ku ilaaliyo inuu maaragtay qalbigoodana ilaahay hadaayad iyo hanuun iyo iimaan inuu ilaahay ku rido on maaragtay ilaahay uga baryaynaa iyo jannaan ilaahay uga baryaynaa iyo xilkaas inuu ilaahay ku xiltiro mas'uuliyadaas maaragtay inuu ilaahay ugu kaalmeeyo iyo mustaqbal fiican yani ilaahay uga baryaynaa dadkii qaybinta maaragtay la xil saaray sida maaragtay religious affairs iyo dadkii la qaybiyay ay kamid yihiin maaragtay DCyalkii
aad iyo aad si sharaf leh ayagana maaragtay u garab joogsadeen culimada aan hurdaynin meel kastaaba ayagana maaragtay mahad gaare aan u celinaynaa iyo mustaqbal fiican adduun iyo aakhiraba وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام aan joogno Ramadan tobanka ugu dambeeyay oo ducada ay maqbuul tahay maanta waxaan helay musaacida ballaaran waxaan mahad ugu celinaynaa Ilaahay waxa kale oo ku amaanan ama aan mahad ugu celinaynaa dawladda koontiga uu hogaamiyo Ali Bunow Qorane iyo dibidka Cabdi Dhaqane Maxamed waxa kale oo mahad u celinaynaa culimadii na soo gaarsiisay oo si cadaalad iyo sinaan ku dhisan iyo dhiisiga oo ay wada socdeen si aan annaga kollaba aan u qaybsaneen noogu mas'ala sheegan aan u qaybsanne cid loogu talagalena wax qali uusan jirin dawladda waxaan Ilaahay ka baryaynaa maadaama waqtiga ducada la aqbal laha aan joogno in ay waligeed noo jirto biidnillaahi tacaala assalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waad mahadsantihiin inta inoo keente iyo inta soo bixisaba waxaan ku mahadinaa Ilaahay iyo madaxdii inoo keeneen Ilaahayna maxaan uga baryaynaa mar kasta inuu guul alla siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.